السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركلة سود وواضح آدي آذا ومهدسنتهين مقالكن waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wadanka Saudi Arabia oo xayiraad dhinaca fiisaha ku soo rogay 14 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto xilli xajkii uu soo dhow yahay. arrintaasi sidee dadka Soomaalida ay u qusaynaysaa ayaan rabaa inaan idin la wadaago haddii aan leedmo. maamulka Trump oo maalinta beri ah 100 maalmood oo xilka uu hayay u dabaaldegayo, laakiin kalsoonida ay shacabku hayaan waxa ay maraysaa meeshii ugu horeysay muddo 80 sano ah. madaxweyne boqolkiisa maalmood ugu horeysa kalsoonida shacabku meesha ay gaarto. arrimahaasi iyo sidoo kalena warar soo baxaya oo sheegaya in caruur wadankan ku dhalatay oo waalidiintood ay sharci darro ahaayeen in iyaga iyo waalidiintood la isku masaafuriyay oo hadda soo baxaysana waan idin la wadaagaya. balse marka hore soo dhawaada wadanka Saudi Arabia oo ay ku yaalaan labada xaram oo in dadka muslimiinta ah ay u xajiyaan sanad kasta umrana loo tago, dad fara badan ay booqdaan sida goobaha muqaddaska ay u soo arkaan, ayaa dowladda Saudi Arabia xilli hadda munaasabadii xajka ay soo dhowdahay waxa uu sheegay in xayiraad dhinaca fiisayaasha ah uu ku soo rogayo dhowr wadan oo Soomaaliya ay ku jirto. waxaana dowladda Sacuudigu ay sheegtay arrintan inay ahaan doonto xayiraadan mid ku meel gaar ah, waxaana laga mamnuucayaa 14 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto in fiisa booqasho ama umro ay ku yimaadaan wadanka Saudi Arabia. xajku kuma jiro, dadka ogolaashaha xajka haysto waa ay tagi karaan, laakiin inta xajka uu socdo waxaa jirta dad fara badan oo ama booqasho ku tagay ama umro ahaan u tagay in waajibkii xajka ay gutaan. marka arrintaasi ayay doonayaan ama dowladda Sacuudiga ay doonaysaa inay ka hortagto. marka 14kaasi wadan waxaa ka mid ah Iran, Nigeria, Ethiopia, Somalia, Congo, Libya, Sudan iyo weliba wadamo kale oo aan idiin sheegi doono. marka waxaa la yidhi dadka ku xadgudba arrintaasi oo dowladda Sacuudiga ay uga gol leedahay sugidda ammaanka iyo xakamaynta ciriiriga, waxaa dadka ku xadgudba xayiraadda dhinaca fiisayaasha oo dowladda Sacuudiga ay soo saartay waxa ay la kulmi doonaan in ganaaxyo ay ka mid yihiin lacag in lagu ganaaxo, la xiro, markaasi kadibna la masaafuriyo. marka arrintaasi dadku waa inay ka digtoonaadaan, weliba dadka umrada ku tagay iyo dadka fiisayaasha booqashada ku tagay waaye. haddii qofku ogolaasho xaj uu haysto waa uu tagi karaa. marka arrintaasi ayaa dowladda Sacuudiga ay hadda leedahay qofka ku guuldareysta inuu u hoggaansamo amarada ka soo baxay dowladda Saudi Arabia. si aan idiin sheegay, ganaax lacageed ayuu mutaysan karaa oo weliba aad u ballaaran, xabsi ayuu mutaysan karaa, markaasi kadibna waa la masaafurinaya. marka qofku waa in uu eego qorshayaashiisa dhinaca safarka ka hor inta uusan Sacuudiga aadin, xilliga uu tagayo iyo weliba xilliga uu ka soo baxayo. marka sidaas ayaa dowladda Sacuudiga ay hadda leedahay. sida hadda la wada sugayo xajka waxaa la filayaa bisha Juun in uu bilowdo, iyadoo wasaaradda xajka ee Sacuudigana waxa ay tiri dadka umrada oo u jooga wadanka Saudi Arabia hadda waxaa loo baahan yahay inay Maka ka tagaan Abriil 29keeda oo maalinta beri ah. marka haddii aad umro u joogtay wadanka Saudi Arabia waa inaad ugu dambeyn maalinta beri ah Maka aad ka soo baxdaa oo 29ka bishan. haddii kale waxaad la kulmi kartaa ganaaxyo aad u daran, iyo sidoo kalena haddii aad ku xadgudubto visa violation, haddii aad samayso xadgudub dhinaca visa aad samaysto, waxaa ka dhalan kara caqabadahan soo socda in lagu masaafurinayo, xabsi lagu gelinayo, laguna ganaaxayo lacag dhan oo 50,000 oo riyaal oo lacagta Saudi Arabia oo 13,000 oo dollar u dhiganta, amaba sidoo kalena xabsi 6 bilood ah ayaad mutaysan kartaa. marka dadka sii jooga waa iyadoo weliba waqtigoodii umraha fiisahoodii uu dhacay, dadka sii jooga haddii lagu arko adigoo sii joogay, ganaax lacageed, xabsi iyo masaafurin ayaa la isugu kaa daraya. marka arrintaasi ayaa hadda dowladda Saudi Arabia ay ka digaysaa, waxayna qabanaysaa dhammaanba dadka fiisaha umrada ku jooga iyo kuwa fiisaha booqashada ku jooga. haddii waqtigii loogu talagalay ay ka bixi waayaan wadanka Saudi Arabia in ganaaxyadaasi ay mutaysan karaan. waxaana sidoo kale dowladda Saudi Arabia ay sheegtay in waqtiga ka bixitaanka iyo waqtiga soo gelitaanka la adkeynayo si looga hortago arrimaha dadka fiisaha umrada wata iyo kuwa booqashada wata. sida ay sheegay 29ka bishan oo biri ku beegan waa inay ka baxaan. arrintaana waxa ay bilaabatay intriga in la xadido Maka 23kii bishan oo arbacadii la soo dhaafay ahayd. marka haddii sidoo kalena aad xitaa dadka degan Maka oo galaya waxaa looga baahan yahay inay cadeeyaan
in ay degan yihiin magaalada Maka sidoo kalena shaqaalaha shaqo ahaan u tagaya goobaha barakaysan waxaa sidoo kalena iyaga looga baahan yahay barmidkooda ama ogolaashahooda in ay muujiyaan sida hadda xajka la filayo waxaa la filayaa in uu bilowdo 6 Juun ilaa 11 bisha uu socdo hadba waxay ku xiran tahay xilliga bisha la arko sidaas darteed ayaa dowladda Sacuudi Carabiya waxay sidoo kale u digaysaa in shirkadaha dhinaca travel agencies oo waxay leedahay shirkadaha dhinaca travel agency oo iyaguna dadka tikidada iyo u jira isla markaana dadka geeya inta badan umrada in iyagana sidoo kale lala xisaabtami doono oo si aad ah loo eegi doono shirkadaha ku guuldareysta in ay soo report gareeyaan dadka xujayda ah ama umreystayaasha ama booqashada ku jooga oo ku xadgudbay waqtigii loogu talagalay viisahooda in ay shirkadaha ay mutaysan karaan lacag Sacuudi riyaal ah oo 100,000 oo riyaal ah oo u dhiganta 26,659 dollar sidoo kalena ganaaxu waa uu sii kordhi karaa hadba waxay ku xiran tahay tirada dadka ku xadgudbay shuruudii viisaha oo aysan soo report gareynin marka arintaasina waa ay jirtaa 14 wadan ee marka laga mamnuucayo in Sacuudi Carabiya ay tagaan ama umra ay ku tagaan ama viisa booqasho ay ku tagaan xajku kuma jiro qofku viisa ogolaasho xaj haduu haysto waa uu tagi karaa laakiin waxa la xanibay waxay tahay xilligii xajka uu soo dhow yahay dadka umrada ku imaanaya booqashadana ku imaanaya 14 wadan kuma imaan karaan viisa umro ama booqasho waxayna kala yihiin Iran, Nigeria, Yemen, Ethiopia, Kenya, Somalia, Chad, Niger, Mali, Congo, Central African Republic waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga dhexe, Libya, Sudan iyo Pakistan 14kaasi wadan waxa la leeyahay umrana looma ogolaanayo viisa booqashana looma ogolaanayo xilliga xajku uu soo dhow yahay marka arintaasi waa in ay dadku ka digtoonaadaan waxa sidoo kalena dadka viisayaasha umrada haysta sidoo kale arintan ay saameynaysaa waxaana looga baahan yahay haddii qofku uu haysto viisa xaj waa uu tagi karaa isla markaana waa inaad iska eegtaa ka hor inta aadan tikidkaada jaranin viisayaasha dadka la xanibay amaba la adkeeyey maxay yihiin laga bilaabo 13 bishan Abriil aynu ku jirno ayay arintan waxay noqon doontaa mid dhaqan gashay waxayna socon doontaa ilaa iyo seasonka amaba xilliga xajku uu ka dhamaanayo marka dadku arintaasi ha ka digtoonaadaan waxaana sidoo kale waxyaabaha laga qaadan kara hadda kamid ah xanibaadaha dhinaca safarka ee wadanka Sacuudi Carabiya in qofku uu marka hore iska xaqiijiyo visa eligibility-ga in ogolaashaha dhinaca viisaha uu Sacuudiga ku tagi karo 14kaasi wadan ee la xanibay oo Soomaaliya ay ku jirto waa in ay ka fogaadaan in ay waqti ka badan waqtigii viisahooda uu dhacayay ay sii joogaan wadanka Sacuudi Carabiya waana sidoo kalena qofku haddii uu haysto viisa umro amaba booqasho waa inuusan isku dayin inuu waajibka xajka uu guto sidoo kalena qofku waa inuu kasoo tagaa haddii umro ama viisa booqasho uu ku joogay wadanka Sacuudi Carabiya maalinta berri ah oo 29 bishan haddii kalena ganaax lacageed xabsi iyo masaafurin ayuu la kulmi karaa marka qofku waa inuu u hogaansamo ayaa la leeyahay xayiraadahan dhaqan galay 23 bishan arrimahaas waa arrimo muhiim oo aan rabay inaan la wadaago dadka Soomaalida ah oo doonaya in ama booqasho ku jooga ama sidoo kalena umra ahaan u tagay wadanka Sacuudi Carabiya Trump ayaa maalinta beriyaha waxa uu dabaaldegayaa 100 maalmood oo xukunka hayay marka qiimeyn ayaa lagu sameeyaa madaxweynayaasha 100kooda maalmood oo horeeya Trump gool uu dejistay ayaa jiray 100kiisa maalmood waxyaabaha uu qaban doono arrimaha hadda waxa uu ku fiican yahay dhinaca immigration-ka hadii si loo fiiriyo laakiin dhinaca dhaqaalaha canshuurahan uu soo rogay waxyaabahaasi oo idil dadka iyo waliba shaqada uu qabanayo iyo wadanku jiha fiican ma ku socdaa dhamaanba dadka shacabku waxay leeyihiin arintaasi Trump waa uu ku guuldareystay Trump hadda shaqadiisa sida uu qabanayo waxa la leeyahay 39% ayaa ku taageersan shacabka Mareykanka 55% waa ay ka soo horjeedaan sidoo kalena Trump dhinaca dhaqaalaha markii uu xafiiska la wareegay waxay dadku leeyihiin dhaqaaluhu 53% waa uu sii xumaaday halka 25% uu leeyahay sidii uu ahaa waxba iska ma bedelin halka 22% ay leeyihiin sidoo kalena waa uu ka wanaagsanaaday sidii markii uu ahaa ka hor intuusan xilka la wareegin sidoo kalena siyaasadaha Trump waxa la leeyahay dhaqaale burbur ma keeni karaan ayaa la weydiiyay dadka shacabka 72% waxay yiraahdeen waa laga yaabaa siyaasadahan Trump oo dhinaca canshuuraha in dhaqaale burbur
burbur ay keenaan 26 boqolkiibana waxay yiraahdeen lagama yaabo marka arrimahaasi ayaa waxay yihiin arrimaha Trump hadda dadka shacabka ay leeyihiin kalsoonidiis waxa leeyahay 80 sano boqolka maalmood oo u horeeyay madaxweynayaashii wadankan soo marayay heerka taageerada shacabku ay hayaan meeshii ugu hooseysay muddo 80 sano ayaa Trump uu maraya sidoo kalena waxa jirta in banaanka aqalka cad Trump uu ku dhajiyay ilaa iyo 100 sawir oo kala duwan oo ah dadkii wadanka ay ka masaafuriyeen oo dambiilayaasha ahaa ay ku soo dhajiyeen marka uu ku faanaya Trump sidoo kale intii uu xilka hayay waxa la leeyahay ba 9 qofood oo kaliya ayaa lagu soo daayay wadanka oo si sharci darro ah dadka ama xadka laga soo daayay halka xilligii Biden ay ahayd 181,241 in la soo daynayay shakhsiyaad sanadkii 2024 marka maamulka Trump hadda waxa la leeyahay marka kalsoonida shacabku ay ku qabaan meeshii u hooseysay ayay maraysaa waxa hadda sidoo kale soo baxday in 3 caruur oo waliba mid kamid ah uu kansar qabo oo waalidiintood ay wadankan ku dhaleen waliba iyagu waalidiintu ay sharci darro ahaayeen ilmuhu haday wadankan ku dhashaan hadii xitaa waalidku uu sharci darro wadanka ku joogay muwaadin ayuu hore ka noqonaya taasi oo Trump uu doonayay inuu meesha ka saaro laakiin dastuurka ayuu ku qoran tahay waa kii wareegta saxiixay maxkamadda sare ay kamid tahay ayaana sidoo kale diiday arintaasi laakiin waxa la leeyahay hadda garsoore ayaa wuxuu sheegay bisha soo socotay inuu dhageysanayo kiis ilmo 2 jir ah oo hooyadii iyadoo la masaafurinayo ay lala masaafuriyay waxa maamulka Trump uu leeyahay hooyada ayaa tiri ilmahayga la igama reebayo marka waa lala masaafuriyay laakiin arintu sidaas ma ahan ay leeyihiin qareenada hadda u doodaya oo ilmaha qasab ayaa loogu daray maamada waxayna doonaysay maamadu inay ilmaheeda ay ka tagto 3 caruur oo muwaadiniin Mareykan oo wadanka ku dhashay ayaa El Salvador loo masaafuriyay waalidiintood sharci darro ahaayeen waalidiintoodna lala masaafuriyay Tom Homan oo maamulka Trump xil saaran arrimaha xadka iyo masaafurinta waxa uu sheegay in hadii waalidku uu yiraahdo ilmahaygu igama harayaan in lala masaafurinayo waxayna diidayaan in waalidiintii ilmahooda ay kala reebaan sida xilligii hore ee Trump 4 sano xilka hayay 2017 ilaa iyo 20 ama 2016 ilaa 20 dhacday oo waalidiinta iyo sidoo kale caruurtoodii la kala reebay qaarkoodnaba ay kala lumeen maamulka Trump waan arki doonaa maalinta bariyaha marka boqolka maalmood uu u dabaaldego hadii sidoo kalena arrimihii qaxootiga uu ka hadlo isla markaana wasaaradihii loo xil saaray wasaaradda amniga gudaha iyo arrimaha dibadda ay war ka soo saaraan waan arki doonaa maadaama 100 maalmood hadda ay u buuxsantay Trumpna 9 maalmood uu qabsaday in dib u eegis lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo waliba dhamaanba qaabkii kala duwanaa ee wadankan lagu soo gali jiray hadii wax kale ay ka soo kordhaan insha Allah muuqaaladeena dambe ee soo socda ayaan idin kula wadaagi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi